بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم saaka madaxda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo hay'adda shaqaalaha dawladda waa kulan ugu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo u soo bandhigay dhamaystirka kormeerkii ogaanshaha macallimiinta dalka loogu baxay waxa soo dhamaaday kormeerkaasi iyo soo ogaanshaha macallimiintii aan gunaysnayn ee qaranka dheeflaanta ugu shaqeynayay muddada badan diiwaangelinta shaqaalaha dawladdu markay soo dhamaatay dabadeed 954 qof baa wasaaradda waxbarashada fara ka ahaa kormeer 15 kooxood isugu jira oo lagu soo maray guud ahaanba 1081 dugsi ee dalku leeyahay waxa la soo ogaaday tirada macallimiinta dheeflaan qaranka ugu shaqeeya saaka waxa la isla gartay in imika la soo daayo 954 ka macallin shaqaaleyntoodii oo dhameystiran kulankaas saaka halkan ku soo dhameystirmay sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa halkan ka shaacinaysaa in berrito ay soo saari doonto jadwalkii wasaaradihii kale ee wasaaradda waxbarashada kormeerka ku shaqaalowday aan ahayn dabadeed tartamadii iyo gobolada ay ka dhacayaan iyo goorta ay bilaabayaan iyo gobolka ugu horeeya kootada habluhu ay ku leeyihiin kootada ay ku yeelan doonaan dadkaasi dhammaanba goboladii Jamhuuriyadda Soomaaliland tartamadii ka furmayay berrito subaxa baa la shaacin doonaa gobol walba tirada uu helay iyo runtii tartamadaasi goorta ay bilaabi doonaan saaka waa u bishaaro iyo barxad guud ahaanba macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ku kala sugnaa 1081 dugsi oo dalka ah in 954 macallin ku dhawaad 1000 qof saaka kulankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dabadeed wasaaradda hay'adda shaqaalaha dawladda iyo wasaaradda waxbarashadu ay 954 ka qof shaqaaleynayaan halka ay subaxa berritana bilaami doonaan shaacinta dhammaanba kaalimihii kale ee qaranka u banaanaaday dhalinyarada shaqadoonka ama u heelana u shaqeynta qarankooda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sugayay inta dargelinta diiwaangelinta shaqaalaha dawladda hore soo dhamaanayso saaka macallimiintana waa u bishaaro berritana waxa la soo bandhigi doonaa bishaarada kale ee dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay imtixaamadu iyo ay u kala bilaami doonaan insha Allah hambaliya dhamaantiin wasaaradda waxbarashada iyo sayniska hay'adda shaqaalaha dawladda waxay uga mahad celinaysaa wada shaqeyntii kala duwaneed ee muddooyinkii u dambeeyay gacanta lagu hayay guud ahaan qaranka dhalinyaradiisa saaka waa u bishaaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sidaa uu idiin sheegay gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu saaka madaxweynaha iyo madaxweynaha qaranka shir weyn ayay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaaluhu ay la yeesheen ujeedaduna waxay ahayd sidii loo shaacin lahaa natiijadii ka soo baxday kormeer ballaaran oo labada hay'adood ay wada qaadeen oo ku qaadeen sidii loo sugi lahaa ee loo hubin lahaa arrimo badan oo la xidha waxbarashada gaar ahaan macallimiinta iyo shaqaalaha u shaqeeya waxbarashada shaqaalahaas oo duruufo kala duwan ku jira aan noona sugnayn tiradoodu hore aanay u sugnayn ayaa la soo tira koobay oo la soo diiwaan geliyey oo waxa ay kala yihiin iyo tiradoodu inta ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan iyo meelaha ay ku kala sugan yihiin la soo diiwaan geliyey iminkana waxaa maanta halkan loo joogaa in lagu dhawaaqo wixii ay kala noqdeen warbixintoodii baa la soo gudbiyey in badan oo ka midii sidaa la sheegay in ku dhow maanta waxay noqonayaan shaqaale rasmi ah oo aan awal ahayn laakiin u shaqaynayay wasaaradda oo macallinnimo ugu shaqaynayay 200 in ku dhow oo shaqaale hoosaad ahaa oo aan iyaguna ku jirin maxay to payrollka dawladdana way jirteen oo iyaga maanta iyana la shaqaalaysiiyey laakiin waxa jirtay iyana in badan oo tabaruc iyo ku shaqaynaysay gurna la'aan iyo in iyagoo aan shaqaalaysnayn kuwaana xaaladooda dib bay dawladdu u eegaysaa waa laga fiirsanayaa iyaga qudhadkooda hawlaha inaanu shaacinno ayaanu shirkan u qabannay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in badanoo waxaa jiray muddo badan aanay noo sugnayn maxay ahayto xaaladda waxbarashada kormeerkuna kuma ekayn oo keliya shaqaalaha hubintoodee xaaladda waxbarashada oo dhan buu guud ahaan hadday iskuullada xaaladkooda tahay hadday macallimiinta tahay haddii ay ardada iyo tirooyinkooda tahay haddii meelaha ay kala joogaan ay tahay haddii tayada waxbarashadu ay tahay waxaasoo dhan baa la soo qiimeynayey alxamdulilah kormeerkuwaasuna shaqo wanaagsan buu soo qabtay arrimahaasoo dhan waa la soo afjaray iminkana wixii ka dambeeya sidii loo tayayn lahaa ee loo xoojin lahaa ayaa la gelaya